Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu shalay safar ku gaaray Itoobiya iyada oo berri uu furmayo shirka madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe waxa uuna ka dhabeeyay diidmadiisii ahayd in uusan marnaba qayb ka noqonayn shirka magaalada Baydhabo berrito uga furmayo maamulada dalka iyo dowladda dhexe taas beddelkeedana waxa uu kulamo kala duwan la qaadanayaa madaxda dalkaasi Itoobiya sidoo kale Itoobiya waxa ay si weyn uga cadaadisay in uu ka baaqsado shirkaasi maadaama xiriir siyaasadeed oo aan wanaagsanayn uu la leeyahay Addis Ababa xiriirada shaqo ee dhexmaray Deni iyo Itoobiya waxa kow ka ah kuwa dhaqaale gaar ahaan Itoobiya oo danaynaysa dekedaha Puntland gaar ahaan Garacad oo xuduud dhow la leh dowladda Itoobiya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa markaasi maanta u safray dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka Carbeed madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaana waxa uu ku sii jeedaa magaalada Addis Ababa halkaas oo uu kulamo kula yeelan doono mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Itoobiya labada dhinac ee Puntland iyo Itoobiya ayaa lagu wadaa in ay ka wada hadlaan iskaashiga dhanka amniga xuduudaha iyo la dagaalanka argagixisada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sidoo kale sida aan xog ku helnay u sii gudbaya magaalada Dubai ee wadanka isutaga Imaaraadka Carabta waxaana la filayaa in uu wada hadallo ku saabsan dhanka mashaariicda horumarineed la yeesho mas'uuliyiinta dalkaas taa oo markaas sababtay in Saciid Cabdullaahi Deni horay xogo badan oo soo baxayo ay xaqiijiyeen in dowladda Soomaaliya ay ka xayirtay mashaariic gaaraya ilaa iyo 17 mashaariic oo loogu talagalay in laga fuliyo deegaanada Puntland shirka golaha wadatashiga qaran ee maalinka berrito ka furmaya magaalada Baydhabo oo uusan qayb ka ahayn Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la filayaa in looga hadlo arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka amniga la dagaalanka kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo sidoo kale mashaariicda horumarineed ee ay dowladdu xilligan doonayso in ay ka fuliso gobolada dalka waxaana Saciid Cabdullaahi Deni oo maalmihii u dambeeyay isaga iyo waliba dhinaca federaalka ay u kala dabqaadayeen xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka ayaa arrinkaasi ka biyo diiday taa beddelkeedana xilligan waxaa la filayaa tallaabada ay qaadi doonaan xubnaha wakiilada beesha caalamka oo xilligan iyagu u arka Saciid Deni in uu caqabad ku yahay dowladnimada dalka iyo sidii loo dhaqaajin lahaa Saciid Cabdullaahi Deni oo waayadii ugu dambeeyay ahaa budo gooni u tuman ayaa xilligan la aaminsan yahay in carada uu ka qaaday doorashadii 15 May ee uu ku soo baxay mar kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligan waxa uu wadaa loolan xoogan oo ka dhana xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre taas oo la aaminsan yahay in aysan markaa u suuragalayn sida dad badan oo taxliiliya siyaasadda Soomaaliya ay xaqiijiyeen Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maalmihii u dambeeyay sidoo kale waxa uu soo saaray war-saxaafadeed ka dhanahay dowladda federaalka ee Soomaaliya taas oo uu ku shaaciyay horeyba in uu u dhaqmayo sida dowlad madax bannaan oo kale